Okay, B oo boy wuxuu yiri boy, it is written waxay ku qoran tahay all over your face waxa soo dhan wajigaaga ku taala that you are innocent inaad adigu tahay maskiin inaad tahay wajiga kaga taala and need waxaadna u baahan tahay help caawin from me anigaad caawin igaga baahan tahay hadana رباه عفوك إني من نور مدة يداي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري ولا صاحبي يال هل كان وكلمية برايفت سكول مجاعيقنا وعمر محمد علي هدي أي وقت هذه أجوهرية الإصابة وقطع فضلا وحنك عد صنايا إن كان الكات كسر بيرتو سياد كسر بيرتنا وحد أبا أنت وكلية إن سبسكرايب أتابعته إن شاء الله هذا بعد هدي أتهرين للجوكتي أتكو حرنات أهدنا صاحبك أجوده كلمية برايفت سكول فضلا وحنا هذا كعد صنينا إن muuqaalkan aad like gareyso hadii aad like gareysana waxay noqonaysaa inaan ku dhiirano 10 noocan oo kale aan idin soo badino fadlan ku taageer like ina saarto muuqaalkan gambaleelkana ha ilaabin inaad furato maadaama ay ku soo gaari doonaan hadii gambaleelka aad furato wax waliba aan soo dhigno kanaalkeena soo dhawaada saaxiibayaal waatahay saaxiibayaal casharkeena maanta waxaan ku qaadan doonaa haduu leeytmo hot speech hadal kulul between udhaxeeya boy, wiil and girl iyo gabar hadal kulul oo dhexmaray wiil iyo gabar ayaan marka maanta qaadan doonaa hadaba aan bilaabo casharkeena B waxaan ka soo gaabshay waa boy B waxaan ka soo gaabshay boy hadalkana boy ee bilaabay oo wiilka ah wuxuu yiri you wore tight clothes dar jeexjeexan ayaad xiratay and you think waxaadna u malaynaysaa oo aad isu haysataa that you are beautiful girl inaad gabar qurux badan aad tahay ayaad isku haysataa damsal war nacas yahay oo doqon yahay hide your face war wajigaaga qari buu yiri G oo aan ka soo gaabshay iyaduna waa gaal ay u taagan tahay oo kaliya gaal bay u taagan tahay jiidan waxay tiri iyaduna gabadhii you don't know war ma garanaysid oo ma taqaanid how to respect sida loo xushmeeyo girls gabdhaha sida gabdhaha loo xushmeeyo ma garanaysid buu baytiri and you are speaking waxaadna u hadlaysaa like machine sida machine oo kale u hadlaysaa oo aad u qeelinaysaa so sadreedid it's very shame on me aniga ay ceeb weyn igu tahay to respond you inaan adiga ku jawaabo aniga ceeb weyn igu tahay buu baytiri gabadhii B oo la jeedo waa boy wuxuu yiri wiilkii control yourself war naftaada xakame and think about your health caafimaadkaagana ka fikir because sababtoo ah I am anigu waxaan ahay the richest man ninka ugu taajirsan in this area ee xaafadan qof ugu taajirsan baan ahay I have much money lacag fara badanna waan haystaa buu yiri take into account xisaabtana ku darso that I can break you inaan anigu ku kala jebin karo into two parties laba qayb inaan ku kala jebin karana ogow and send you a hospital oo isbitaalna aan ku diri karo laba qayb inaan ku kala jebin karo aan isbitaalna ku diri karo taas ogow buu yiri wiilkii G oo la jeedo waa gaal ayaan ka soo gaabshay gabadhii ayaa hadashay iyaduna waxay tiri I beg from Allah horta Allah ayaa waxaan ka toogaa not to give you in uusan ku siinin 1 cent of money hal centi oo lacag ah inuusan Ilaahay ku siinin ayaan Allah ka baryaa buu yiri and remove the money lacagta una ka qaado lacagta had aad haysatana uu ka qaado ayaan Allah ka toogaa oo aan Allah ka baryayaa buu yiri baytiri gabadhii okay aymaano qaybta kale B weeyaan waa wiilkii oo waa boy wiilkii wuxuu yiri isagoo hadalka sii wadaya it is written all over your face wajigaagay ku taala waxay ku qoran tahay ku taala all dhammaan over your face wajigaagay ku taala that you are innocent inaad adigu tahay maskiin inaad masaakiin tahay wajigaaga ku taala and need help caawinna u baahan tahay from me oo aniga aad iga baahan tahay caawin gaal gabadhii ayaa hadashay iyadoo waxay tiri
stay your limit war xadkaaga joog stay your limit war xadkaaga joog oo xadkaaga ka soo gudbin otherwise haddii kalena I will display waxaan soo bandhigi doonaa I will display waxaan soo bandhigi doonaa oo aan shaaca ka qaadi doonaa what you don't know waxaadan adiga ogeyn baan shaaca ka qaadi doonaa that will make you cry kaasoo adiguna ka oysiin doono that will make you cry kaasoo adiguna ka oysiin doono ayaan shaaca ka qaadaa mise xadkaaga joog bay tiri gabadhii meeshaan waa la iswaabsaday B ayaa markaa boy baa la soo gaaray oo ah wiilkii haddaba wiilka isaga wuu hadlay wuxuu yidhi I will slap you waan ku dharbaaxi doonaa buu yidhi I will slap you waan ku dharbaaxi doonaa a painful slap dharbaaxsho kulul badan aan kugu dhufan doonaa ku dharbaaxi doonaa if you tell something about me haddii aniga aad wax iga sheegto I will slap you waan ku dharbaaxi doonaa a painful slap dharbaaxsho kulul badan ayaan ku dharbaaxi doonaa if you tell something about me haddii aad aniga wax iga sheegto buu yidhi marka waa wiilkii ayaa markaa hadalka wuxuu yidhi I will slap you waan ku dharbaaxi doonaa a painful slap dharbaaxsho kulul badan ayaan ku dharbaaxi doonaa buu yidhi if you tell something about me haddii aniga aad wax iga sheegto dharbaaxsho kulul badan ayaan kugu dhufan doonaa buu yidhi wiilkii gaal ala soo gaaray gabadhii iyadoona maxay tiri marka waxay leedahay don't stammer horta ha shigshigin stammer waxaa la yidhahdaa qofka shigshiga oo hadalka uusan iska dabageyn karin hadalka markuu aamusayo ayaa la yidhahdaa stammer waa qof shigshigaya don't stammer war ha shigshigin bay tiri speak up kor u hadal hadalka kor u qaad or mise you need water from me mise anaad biyo iga rabtaa don't stammer ha shigshigin speak up war kor u hadalka kor u qaad or mise you need water from me mise anaad biyo iga rabtaa biimeed iga rabtaa sheeg B boy aa ula jeedaa boy wuxuu yidhi take your chance war jaaniskaaga fursadaada qaado war jaaniskaaga qaado and give me my jaaniskayga isii marka wiilkaa wuu degay baa ujeeda markaan take your chance jaaniskaaga qaado and give me my chance anigana jaaniskayga isii but balse don't tell ha sheegin what you didn't see waxaadan arkin ha sheegin wax aadan arkin oo ishaada saarin aniga ii sheegin buu yidhi aan ku celiyo boy wuxuu yidhi take your chance war jaaniskaaga oo fursadaas ah haysato horta qaado jaaniskaaga qaado and give me my chance aniguna jaaniskayga isii but balse don't tell ha sheegin what you didn't see waxaadan arkin ha sheegin goal gabadhii la soo gaaray waxay tiri you came with another face today you came with waxaad la timid another face weji kale today maanta war maanta weji kale la timide shut up your smooth mouth shut up your smooth mouth afkaaga sabiin baxa ah iga xir bay tiri before I fill up dump ka hor intaanan cara ku buuxinin okay G gaal ayaa la soo gaaray gaal waxay tiri gabadhii you came with war waxaad la timid another face weji kale today maanta weji kale la timid shut up war xir your smooth mouth afkaaga sameyn baxa ah iga xir before I fill up dump ka hor intaanan caro ku buuxinin afkaaga boy wiilkii la soo gaaray wuxuu yidhi get off my line before I fabbish you buu yidhi get off my line war xadkayga ka bax buu yidhi before I fabbish you ka hor intaanan ku garaacin get off my line war xadkayga ka bax before I fabbish you ka hor intaanan kugu garaacin waxa la yidhaahdo intaanan ku garaacin war xadkayga ka bax buu yidhi gaal gabadhiya marka ugu dambeyn hadalkeedii waxay tiri is that you talking like that qofka sidaa u hadlaayo ma adiga ah is that you talking like that qofka sidaa u hadlaayo miya adiga ah saaxiibayaal halkaasaan ku soo afmeeraya casharkeena maanta waxaad ka heshay muuqaalka ka dareemo inaad like saarto commentigana igala wadaag saaxiib maxaa ka yaabiyay maxaad la yaabtay maxaad maanta codsan doontaa inaan casharkan xiga aan ka soo dhigo saaxiibayaal waad dhammaansantihiin daawashada muuqaalka aad daawatay